oo golaha 12 sano yiil oo maalin dhow ajadaha lagu soo daray oo ajadaha ku jiray ayaa baan isugu nimid horena mashaayikhda waa culimada waa ka wada hadalay shariicada islaamka dastuurkeena wuxuu ugu horeeyo waxa weeye wixii ka hor imanaya shariicada islaamka ay waxba ka jirin haddii la ansixiyo iyo haddii aan la ansixin haddii la ansixiyo xitaa inuusan jirin waxaa sheegaya dastuurka inaguna waxaan ku dhaqmanaa waxa weeye waa dastuurkeena wuxuu ku dhisan yahay shariicada islaamka dad islaam aynu nahay golahuna waa dad muslima waa dad ka wakiila dadweynaha ka wakiila qolada qura dadweynaha ka wakiila waxa weeye golaha wakiilada waayo iyaga dadweynaha soo doortay iyaga ka wakiila dalkan wuxuu ku dhisan yahay waxa weeye wada tashi waa diinta iyo wada tashiga waxaynu ku meel mareen marka wax xeera oo golaha imanaya oo shariicada aan waafaqsanayn oo culimada aan kala tashanna ma sameeyno sidaas aan ballantaas aan wada galay horena ballanta wuu qaadnay haddana waanu qaadanaa golahana way idinka gaarsiinaya culimadii ra'yiga soo jeediyeen waxaan inay diinta ka hor imanayaan wax diinta ka hor imanayana dad muslimiin ah inaan la keenin golaha baarlamaanka marka ballanta waxaan idinka qaadanaa culimada waxaydan raalli ka ahayn oo aan idinkala tashan sharci kasta ha noqdo kuwa kale oo yaal ilaa aanu idinkala tashano inaan wixii shariicada islaamka hor imanaya inaan sameeyno ayaanu idinka ballan qaaday hortiin aad iyo aad bad salaamantii sheekhan